kulan waxaan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee wararka Xalandoon TV. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay howlgallo lagula dagaalamayo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab. Madaxweynaha maamulka Puntland oo kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo amar culus la dul dhigay. Wajiga labaad ee xal u raadinta fatahaadda Webiga Shabeelle oo Beledweyne ka bilaabatay. Fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay caalamka. aynu ku bilaabnay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo lagula dagaalamayo ururka Al-Shabaab la bilaabay. Ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiil ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay halka loo yaqaano Ceel Geelow ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in nolosha ay ku toogteen 3 ka dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo la sheegay in ay miino ku aasayeen wadada si ay u qarxiyaan gaadiidka wadadaasi maraya. Taliyaha guutada 16aad ee Kumaandooska xoogga dalka General Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalku uu yahay mid lagu sifeynayo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. Muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay wadeen howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab isla markaana ay ku bartilmaameedsanayaan meelo badan oo ay kaga sugan yihiin gudaha dalka. Al-Shabaab ayaa weeraro mararka qaar ku soo qaada fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin gobolo ka mid ah kuwa Soomaaliya iyagoo mararka qaarna miinooyin ku aasa wadooyinka ay gaadiidka iyo dadkaba isticmaalaan. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka asagoona kala hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu kulan la qaatay ururada bulshada, madaxda ururada siyaasadda, aqoonyahanada iyo waxgaradka Puntland. Madaxweynaha ayaa bulshada uga warbixiyay xaaladda guud ee Puntland, shaqooyinka dowliga ah ee laga qabtay sida tayeynta ciidamada, horumarinta hanaanka maaliyadda iyo hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo meel wanaagsan maraya. Sidoo kale madaxweynaha ayaa la wadaagay aqoonyahanada, siyaasiyiinta iyo ururada bulshada shirkii Puntland ka qayb gashay ee Dhuusamareeb kaas oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sida Puntland u wajahayso. Madaxweynaha waxa uu sidoo kale bulshada u soo gudbiyay shaqadii wanaagsaneed ee laga soo qabtay gobolka Mudug iyo safarkii uu ku tagay dalka Djibouti. Madaxweynaha ayaa dhageystay fikradaha iyo talo soo jeedinta xubnaha kulanka ka qayb galay, dhammaantoodna waxa ay ka mahadceliyeen kulanka iyagoo muujiyay sida ay dowladdu ugu garab taagan yihiin mar walba arrimaha gudaha iyo Puntland iyo doorka Puntland ee arrimaha Soomaaliya. Madaxda ururada siyaasadda Puntland oo kulanka la hadlay waxa ay madaxweynaha uga mahadceliyeen ka dhabeynta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo caawa ay kaartooda iyo talooyinkooda ku soo gudbinayaan iyaga oo matalaya ururada siyaasadeed ee Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa u mahadceliyay dhammaan xubnaha kulanka ka soo qayb galay. Si gaar ah wuxuu madaxweynaha u bogaadiyay doorka ururada bulshada rayidka ay ku leeyihiin dowladnimada iyo sida ay mar walba uga qayb qaataan marxalad kasta oo markaasi la marayo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa amar culus waxa uu dul dhigay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu kulan la qaatay ururada bulshada, madaxda ururada siyaasadda, aqoonyahanada iyo waxgaradka Puntland. Madaxweynaha ayaa bulshada uga warbixiyay xaaladda guud ee Puntland, shaqooyinka dowliga ah ee laga qabtay sida tayeynta ciidamada, horumarinta hanaanka maaliyadda iyo hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo meel wanaagsan maraya. Sidoo kale madaxweynaha ayaa la wadaagay aqoonyahanada, siyaasiyiinta iyo ururada bulshada shirkii Puntland ka qayb gashay ee Dhuusamareeb kaas oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sida Puntland u wajahayso. Madaxweynaha waxa uu sidoo kale bulshada u soo gudbiyay shaqadii wanaagsaneed ee laga soo qabtay gobolka Mudug iyo safarkii uu ku tagay dalka Djibouti. Madaxweynaha ayaa dhageystay fikradaha iyo talo soo jeedinta xubnaha kulanka ka qayb galay, dhammaantoodna waxa ay ka mahadceliyeen kulanka iyagoo muujiyay sida ay dowladdu ugu garab taagan yihiin mar walba arrimaha gudaha iyo Puntland iyo doorka Puntland ee arrimaha Soomaaliya.
madaxda ururada siyaasadda Puntland oo kulanka la hadlay waxa ay madaxweynaha uga mahadceliyeen ka dhabeynta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo caawa ay kaartooda iyo talooyinkooda kusoo gudbinayaan iyaga oo matalaya ururada siyaasadeed ee Puntland. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa u mahadceliyay dhammaan xubnaha kulanka kasoo qaybgalay. Si gaar ah wuxuu madaxweynaha u bogaadiyey doorka ururada bulshada rayidka ay ku leeyihiin dowladnimada iyo sida ay mar walba uga qayb qaataan marxalad kasta oo markaasi la marayo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Wejiga labaad ee xalka loogu raadinayo fatahaadda webiga Shabeelle ayaa si toos ah waxay uga bilaabatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wejiga labaad ee xalka loogu raadinayo fatahaadda webiga Shabeelle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa si toos ah loo bilaabay, iyadoo guddiga xalalka waara ee fatahaadda magaalada Beledweyne ay weli wadaan dadaalada looga hortagayo in mar kale Beledweyne ay ka dhacdo fatahaad. Aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Beledweyne ayaa guddiga ku ammaanay doorka ay ka qaadanayaan inay xal u raadiyaan fatahaadda webiga Shabeelle. Dhanka kale, xubno ka tirsan guddiga fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa sheegay in wejiga labaad ee xalka loogu raadinayo fatahaadda webiga Shabeelle ay si toos ah u bilaabeen isla markaana ay wadi doonaan. Duqa degmada Beledweyne ayaa guddiga ku ammaantay doorka ay ka qaadanayaan xalka u raadinta webiga oo fatahaado ka geysta magaalada Beledweyne. guud ahaan wararkii Calandoon TV waa naga intaa daawadeen.